waxaa habeenkii xalay ahaa deegaanka khaliija ee dhacduleedka magaalada Cape Town ee wadanka South Africa kooxo burcad South African oo ku hubaysan bastoolado ay ku dileen mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ay halka ka shaqeynayay burcad ayaa toogatay wiilkani xilli uu taagnaa eridka hore goobta uu ka shaqeynayay waxaana sida la sheegay madaxa ay kaga dhufteen ilaa dhowr xabadood burcad ayaa gudaha u sii galay goobta ganacsiga waxaana jirdilo xoogan u geysteen dhalinyaradii kale ee gudaha ku sii jiray si ay u sheegaan meelaha ay ku jiraan lacagaha iyadoo burcadna halka ka qaateen lacago iyo kaararka telefoonada lagu shubto ciidamada booliiska ayaa goobta uu falku ka dhacay gaaray waxaana halka laga qaaday dhalinyaradii dhaawacyada kala duwan ee u geysteen burcadda iyo midkii geeriyooday iyadoo ciidamada booliisku ay halka baaritaano kala duwan ka sameeyeen milkiilaha xarunta ganacsi oo dhac uu ka dhacay warbaahinta qaranka kula hadlay goobta lagu aasayay marxuubka ayaa wuxuu sharaxaad ka bixinayaa qaabka uu falku dhacay idnayga ma soo reen laba nin oo booliis iyo hal wiilo diriska dukaanka oo iga soo horreeyay ninka leeyahay markaan u tagayna asagoo banaankaaba lagu dilo gudaha ma lagu dilin wiilasha kalena midna tiilka isaga jira nalkiisa ku dansada meeshiisa yarka kale oo banaanka joogna waa la qaraacay qoraafkiisa dil uu qaraacay albaabka fura leeyri albaabka hadda uu furay kii oo nalka shita markaas gudaha galeen tiilka gudihiisa day galeen wixii oo markaas jaanji iyo airtime ilay qaateen ma aha markii ugu horeyso halkan aan ka hadalno ama bayaankeena aan ka soo jeedino haddana ma aan aragno cid wax nooga qabanayso hadda jimcaha maanta jimcihii la soo dhaafay ayaan halkan joogno maartay wiil kale asan weelkiisa oo ilmadeer ay yihiin ayaa halka ku soo dugnay si darteed anigu maadaama odayaasha dhaqanka aan ka mid ahay waxaan ka codsaynaa marka golaha wasiirada qaasatan wasiirka arrimaha dibadda in sida ugu dhaqsiyaha badan naloo soo diro safiir waayo anagu waxaan nahay nin ugaarsanayo asna la ugaarsanayo anagu waxaan ugaarsanaa ganacsigaas waxaan ka raadsanaa wax annagana waxaan ugaarsataa tuugadii cid maanta wax nooga qabato ilaa abuurtana ma jirto tactive ama booliis ama maartay wax nala shaqeeyo maartay diyaar u ah inay wax maartay nala qabtaan ma jiraan halkani waa qabuuraha muslimiinta lagu aasay xaafadda Aldon ee magaalada Cape Town waxaana iminka lagu aasayaa marxuumkii ugu dambeeyay habeennimadii xalay ah lagu dilay magaalada Cape Town gaar ahaan xaafadda Khaliija wana lagu magacaabaa Usmaan Shamuuq Allah u naxariistay aaska marxuumkan waxa ka soo qayb galay muwaadiniin aad u fara badan oo tiiraaye ka muujinaya geerida naxdinta badan ee ku timid muwaadinkaasi Cabdullaahi Maxamuud Amiin Abdullaahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town wadanka South Africa